kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii warbaahinta wadaagsin oo aan hadahan oo kale idiin soo tabin jirnay waa 3 bisha Agoosto 2019 qodobada ugu doorka roon ee warkeenana waxaa kamid ah maamulka Puntland oo ku adkaystay mowqifkii ay ka taagneed Qatar madaxweynihii hore ee Puntland Gaas oo sifooyin cajiib ah ku tilmaamay geeridii ku timid marxuum Yarisow dawladda Seychelles oo eedeyn culus u jeedisay Somaliland mowqifka dawladda Itoobiya ee ku aadan dib u soo laabashada Axmed Madoobe Abdinaasir Seeraar iyo kun askari oo wata oo kismaayo weerar ku ah doomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo tababar habeenkii loo furay khayre oo amaro culus siiyay ciidamada la wareegay Dhuusamareeb daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena daawada waxa xasuusiniga ah inaad subscribe saaratid channelka gambaleelkana furatid si ay ku soo gaaraan wax walba oo aan soo galino dawladda Puntland ayaa ku adkaysanaysa mowqifkeeda ku aadan baahida loo qabo in la baaro qaraxii bishii May ka dhacay magaalada Dakada leh ee Boosaaso kaasoo la xiriiray dalka Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed la taliyaha sare ee dhanka ammaanka madaxweyne Dani ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inuusan wax isbedel ku imaan mowqifka xukuumadda Garowe majalada New York Times oo baahisay sheekada ku aadan in Dooxa ay kaalin ku lahayd weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 10 ruux ayaa xustay inuu jeedku ahaa in meesha looga saaro Imaaraadka arrinta ay jariiradu ka qortay Qatar iyo kuluglugaashiyaha qaraxa Boosaaso ka dhacay qodobkaasi dawladda Puntland mowqif bay ka qaadatay madaxweynuhuna waa ka hadlay markii ugu horeysay ay jariiradu shaacisay maqaalkeeda ayuu yiri Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka qayb galay barnaamijka faaqidaada ee VOA laanteeda afka Soomaaliga isagoo kale marka sharaxaya mowqifka dawladda Puntland wuxuu intaasi raaciyay dawladda Puntland waxay qaadatay mowqifkaasi oo ah dalab ay ka dalbanayso wadaha dawladda Soomaaliya in arrinkaasi ay si degdeg ah baaris ugu sameeyaan kadibna baaristaas wixii ka soo baxa markaasi aan anagu cadayno mowqifkeena iyo dhammaan dawladda federaalka joornaalkan reer Mareykan ayaa ku waramaya inuu hayo cod laga duubay safiirka Qatar u fadhiyo Muqdisho kaasi oo ganacsada dalkaasi u dhashay u sheegay in iyagu ku dambeeyeen dhacdadaasi madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay geerida naxdinta leh ee ku timid gudoomiyihii maamulka gobolka Banaadir iyo duqii magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Yarisow madaxweynihii hore ee Puntland ayaa marka hore ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyska iyo qaraabada uu ka baxay Yarisow kaga tacsiyeeyay geerida ku timid maalintii Khamiista ahayd Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Yarisow oo kale uu ku yaryahay Soomaalida markan eega buu yiri akhlaaqdiisa iyo dabiicadkiisa Cabdiweli Cali Gaas ayaa yiri shaqada markuu qof la hayo daacadnimadiisa iyo howlkarnimadiisa ayaa ugu la shaqeeyay inta aan wada shaqeynanay in aan dib badnayn in aan waxyaabaha shakhsiga ah oo gaarka rabitaanka ay aad ugu yaraayeen oo qof marka aad shaqo u dirto shaqadiisa aad ku kalsoon tahay inuu sidoo yahay uga soo baxayo Cabdiweli Cali Gaas ayaa tilmaamay xilligii ra'iisul wasaaraha in Yarisow uu la taliye u ahaa isla markaana uu ku aaminay arrimo badan intii uu la shaqeynayay Gaas ayaa Yarisow ku amaanay weligii inaan weydiisan in golaha wasiirada uu ka mid noqdo ama uu magacaabo duqa Muqdisho ninka caynkaasi ah ayaa waxaan ilaa ay hadda la garanan cidii mas'uulka ka ahayd qaraxii lagu dilay iyadoo ay dawladda Soomaaliya ka cagajiidayso inay soo bandhigto natiijada baaritaankii la sameeyay si shaaca looga qaado cid kasta oo ku lug lahayd dilka loo geystay isaga iyo intii kale ee la shaqeynaysay dawladda Seychelles ayaa si xooggan u cambaaraysay ilaa 19 maxaabiis oo loo haystay burcad badeednimo kuwaas oo dhammaan madaxweynaha Somaliland u afidiyay cafis lagana sii daayay xabsi ku yaala gudaha Hargeysa warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ay dalkaasi ayaa lagu sheegay in Somaliland ay ka baxday heshiis ay hore ula gashay Seychelles kaas oo ku aadan in maxaabiista lagu eedeeyay burcad badeednimada ay ku sii jiraan xabsiga inta ay ka dhameysanayaan xukunka ku dhacay sidoo kalena Seychelles ayaa sheegtay in la yaab ku noqotay talaabada lagu sii daayay maxaabiistaasi ee dib loogu soo siiyay xorriyadooda waxa warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in maxaabiista la sii daayay ay xukunaayeen xabsi u dhaxeeyo 36 sano ilaa 42 sano isla markaana ay hadda xirnaayeen kaliya 9 sano ugu dambeyn Seychelles ayaa shaacisay in talaabo ay qaaday Somaliland ay jabinayso heshiiskii oo hore ula gaartay maamulkaasi wargeyska Daily Nation ay ka soo baxeen Nairobi ayaa qoray in xukunka Axmed Madoobe ee Jubaland ay soo gabagabayn karto loolan adag oo kaga imaanaya Abdinaasir Seeraar iyo odayaasha beeshiisa wargeyska ayaa qoray in Seeraar oo hore uga tirsanaa Axmed Madoobe jabhadii Raas Kamboni oo wada olole xoogan oo xukunka looga toorayo Axmed Madoobe warbixintan ayaa sheegtay in Seeraar oo haysta maleeshiya ku dhow 1000 askari uu isku diyaarinayo dagaal ka dhan ah Axmed Madoobe iyo ciidankiisa haysta Jubaland Seeraar ayaa sidoo kale qaaday talaabo ka dhan ah Axmed Madoobe isagoo ciidamadiisa ku difaacaya
musharaxiinta kale ee Jubbaland ee Axmed Madoobe uu ku beegsanay Kismaayo kuwaas oo ilaalo siiyay Seeraar ayaa sheegay in Axmed Madoobe uu iska inatirayo sharciga وعجوب كاي شعب كإسلام مركان وأربوش عيدا ماذا قرن كصوماليا أحمد مذوبة أيا وجاي صدع مشرع وكسر كذا بيش عوليهان أو غادان أو كلا سيرار وسير قاديس كدوليس تهودا محمد عبد الله السلاد عمر إيه محمد مرشاي أو هري ولا شقيا هيدا قرن مذي مذوبي إفاو سيرار أيا لا شقين وصيدو كلا تاجرك استقرار بدن وكم مذو ضياش دقن كبيش وغادان gaar ahaan beesha cawliyahan ee ku badan waqooyi bari ee Kenya Axmed Madoobe oo diyaar u ah inuu xukunka mar kale kula wareego doorasho uu isagu maamulayo ee Seeraar oo ay ka go'an tahay inuu awood kaga hortago ayaa Kismaayo qarka u saaraysa dagaal sokeeyo oo ka qarxa inta badan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa la ogaaday inay tababar ku qaataan dugsiga tababarka ciidamada booliska Soomaaliya ee General Kahiye gudoomiyaashan oo la doonayay inay ka mid noqdaan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa la sheegay in tababar waqti kooban soconayo loogu furay dugsiga tababarka booliska waxaana la qaatay cashirada habeenkii tababarka waqti kooban soconaya ayaa la qaatay cashiro ku saabsan qaabka salaam qaadashada iyo shuruucda kale ee booliska lama oga inuu go'aanka yahay mid gudoomiyaashu ay gaar u qaateen iyo inuu yahay go'aan ka soo baxay madaxda dawladda maadaama ay xaalad adag ku jirto Muqdisho dadka aan la hadalnay ayaa noo sheegay in go'aankan uu yahay mid ay gudoomiyaashu qaateen si ay badbaado uga noqoto marka ay dhacdo in xilka laga qaado gudoomiyaal badan oo xilka laga qaaday ayaa hadda ku dayacan Muqdisho iyo gobolada dalka waxaan la filayaa inay wadaan dadaalo ay uga sii mid noqonayaan xayndaabka dawladda haddii isbedel dhaco ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay gudoominayay shir looga hadlayay amniga magaalada Dhuusamareeb waxa uuna fariin culus dul dhigay ciidamada la wareegay Dhuusamareeb Khayre ayaa faray ciidanka isku dhafka ah ee la wareegay amniga Dhuusamareeb inay ka soo dhalaalaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday sidoo kalena wuxuu tilmaamay in looga baahan yahay inay wada shaqo dhow la yeeshaan qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaaladaasi ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale saraakiisha ciidamada amray inay la yimaadaan qorshe lagu dardargelinayo amniga maadaama ay dhawaan shirkadda heshiisiinta uu ka furmayo halkaasi ugu dambeynna wuxuu kala hadlay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada sidii al-shabaab looga saari lahaa guud ahaan deegaanada maamulka Galmudug shirkaan ayaa ku soo aadayay iyadoo shalay si rasmi ah dawladda Soomaaliya ay la wareegtay amniga Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud dawladda Itoobiya ayaa gacan ka geysanaysa sidii meesha looga saari lahaa madaxweynaha Jubbaland وانا موقف كودا كو آدن دب أصول لابشة أحمد مذوبة إثيوبيا أيال شجعين يسندوني إني هجامي كوحد دم بقول شجع سامين لكسي هاي صوماليا إثيوبيا يا دي سكون دويهن مدحوينا فرماج أيا كعاونة سينا يمرش كبحان مدحنا مامل قوليدا uusan rabin madaxweynuhu hore ayay dawladdu waxay ugu guuleysatay inay meesha ka saarto madaxweynayaashii koonfur galbeed iyo galmudug halka Hirshabeelle ay heshiis la gaadhay doorashada madaxweynaha Jubbaland ayaa dhacaysa 21 bishan hase yeeshee ilaa hadda ma muuqdaan astaamo muujinaya in Axmed Madoobe uusan soo noqon doonin daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roonaa ee warkeena maanta inta aan midkan mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagnaa sidaas nabadgelyo